muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa 5 kamid ah Dismayasha dhaadheer ama skyscraperska kuwaas oo lagu dhisay lacagta ugu badan. Haddaba ku soo dhawaada Dismayasha balaayiinta dollar ku fadhiya. One World Trade Center waa dhismaha ugu dheer Mareykanka wuxuuna mansabkan kala wareegay Willis Tower oo ahaa dhismaha ugu dheer Mareykanka ka hor inta aan la hirgelin One World Trade Center. Sidoo kale One World Trade Center waa mid kamid ah kuwa ugu dhaadheer dunida. Haddii aan si kale u dhignana waa dhismaha toddobaad ee ugu dheer caalamka wuxuuna joogiisu dhan yahay 541 mitir. Wuxuu ka dhisan yahay magaalada New York gaar ahaan halka ay ka taagnaayeen daarihii mataanaha ee 12 September 2001 la burburiyay. waxaana dib loo dhisay oo la dhameystiray sanadkii 2014 waxaana ku baxday lacag gaaraysa 3.8 bilyan oo dollar. The Cosmopolitan of Las Vegas ama sida fudud ee loo yaqaano oo ah The Cosmo waa midka kaalinta afaraad fadhiya marka la eego daaraha dhaadheer ee lacagta ugu badan lagu dhisay. waa hotel raaxo iyo casino ah ama waa mid qamaarka lagu ciyaaro. wuxuuna ku yaalaa Las Vegas oo ah magaalo dhacda gobolka Nevada ee dalka Mareykanka. waa mid ka kooban 3027 qol wuxuuna leeyahay 2 tower oo dhirirkoodu wada yahay 603 feet iyo sidoo kale barxad uu badkeedu gaarayo 10,000 mitir isku wareega. waxaa la furay 15 December ee sanadkii 2010 waxaana lagu dhisay lacag gaaraysa 3.9 bilyan oo dollar. waxaana hotelkan loo aqoonsaday 2013 midka ugu fiican caalamka waxaana iska leh The Blackstone Group. Wynn Resort weli waxaan dhex joognaa Mareykanka gaar ahaan magaalada Las Vegas waxaana kaalinta saddexaad ka soo galay liiskan Wynn Resort ama Wynn Las Vegas. waa hotel raaxo iyo casino wuxuuna ka kooban yahay 2716 qol iyo barxad lagu ciyaaro oo bad ahaan ah 17600 mitir isku wareega. waxaa la furay 28 Abriil 2005 waxaana iska leh shirkadda Wynn Resorts Ltd. waxayna noqonaysaa guud ahaan lacagta ay hotelkan dhismihiisa ku qarash garaysay 4.1 bilyan oo dollar. wuxuuna ahaa markii la dhisay midka ugu qaalisan. Marina Bay Sands waxaa kaalinta labaad si aan ciriiri lahayn ku soo galay Marina Bay Sands oo ku yaala Singapore. waana hotel iyo casino isku jira waxaana lagu qabtaa bandhigyo dunida caanka ah. sidoo kale waa mid aflaan badan ka soo muuqday sida Crazy Rich Asians iyo Independence Day Resurgence. wuxuu ka kooban yahay 2561 qol iyo barxad gaaraysa 15,000 mitir isku wareega. waxaana si ku meel gaar ah loo furay 27 Abriil 2010 balse waxay ahayd marka sida rasmiga ah loo furay 23 Juun ee isla sanadkaas. waxaana iska leh shirkad Mareykan oo lagu magacaabo Las Vegas Sands Corporation. waxayna ku dhiseen hotelkan baaxadda weyn lacag gaaraysa 5.7 bilyan oo dollar. Abrajal Bay Towers waxaa liiskan soo gunaanadaya isla markaana kaalinta koowaad galaya iyadoo uusan jirin dhismo ku soo dhow. Abrajal Bay Towers ama Abrajul Bayt waa koox taawaro ama burjiyaal ah oo ku yaalaan magaalada barakeysan ee Makka ee dalka Sacuudiga. wuxuuna ka kooban yahay ilaa 7 burji waxaana midka ugu dheer ka arki kartaa saacadda ugu weyn caalamka. waxaana loogu magac daray boqorkii lixaad ee boqortooyada Sacuudiga Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. marka aan laga hadlayn structure-na waa dhismaha saddexaad ee ugu dheer caalamka wuxuuna dhirirkiisu gaarayaa 601 mitir. sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay taawarka ama burjiga ugu weyn marka la eego badka uu ku fadhiyo. taawarka saacadda ayaana hotel ah waana taas sababta uu uga duwan yahay 6da kale. waxaa la bilaabay dhismahooda 2004 waxaana si toos ah loo dhameystiray oo la furay sanadkii 2012 waxaana lagu dhisay lacag gaaraysa 15 bilyan oo dollar. waxaa laga yaabaa in ay qaarkiin isweydiinayaan sababta liiskan loogu xusi waayay dhismaha ugu dheer caalamka ee Burj Khalifa. marka Burj Khalifa la garab dhigo 5ta aan xusnay oo wuxuu noqonayaa qarashka lagu dhisay mid aan ku filnayn si uu liiskan u soo galo. waxaana lagu dhisay lacag gaaraysa
1.5 bilyan oo dollar.